hooyadii baa marka tiri ma adu ku soo garaacay hu istaagtaalay markay dugsiga iyo iskuulka isku dhinac ay jireen waxay u qabtaa macalinkan oo dugsiga dhigayo u qabtaa markii dugsiga u damreed xageeday wadaa suuyir waxa soo diray waa kii iskuulka manaa tiri kii iskuulka hadii uu kugu sugay mid kaana u mareenayo tiri quraanka ku dhigay marka dad heerkaas mar hayaan Soomaaliya dad heerkaas mar hayaan kaas isagu waxa weeyaan waa fiican waxa kale oo la mid ah macnaha bay oo la mid ah macalinku wuxuu leeyahay lacagta 700 ama 500 bishi macalin lama heli karo cunigan maanta wada iskuulka 3500 kana dil wiiraan 5 daqiiqo lama maqnaan soo gudbinaysa maxay dhaantaa mid maamada cunug dabardiisa waxa ma dhaanta la mid wey in marka quraanka waxyaabooyinkan kala dhan haday qarashta haday fikrata haday xushmad tahay haday tahay jeclaansho haday tahay la jeclaado intaba inuu kaga sareeyo loo baahan laakiin kana inuu u liidnaad xaq liidnaad kana usaanaada lama baahno waxa lagu oranayaa kuraas iyo miisas muhiim ah loo baahan yahay lagu oran cunuga iskuulka jawaal loo sheegay hadii uu hal miis cunugaada uu ku fadhiiso 5,000 joogo soo samee uu ku qasbay waalidku inuu sameeyo 5 daqiiqo ku sameeyo macalinka haduu yiraahdo dugsiga ma hada fadnaa xabada sigaado 600 soo gadno horaad uu sigaado hagateen ka dhaaf leeso arag marka waaqic jira way waxa soo radan sheegayo dhan wax loo baahan yahay ma aha liidnaan fara badan bay keenaysaa ficil ahaan baan u sameeynaa ugu wad ficil ahaan baan u sameeynaa marka insha Allah taala waxa naftaanada ee maalkaanaga u qoorno quraanka ahaato waladkaadana qofka ugu sareeyo noqon waxa la yiri nin weyn oo aan mar la kulmay waliba qisas la yaab leh baan kula kulmay aro masaajidkan Abu Bakar si socod aroor 12 daqiiqo joogo nin tusbax cadwad tinta ku taalo xabad madow kuma jirto wada cad asagoo dhan qamiis cad iyo cimaamad cadwad yaa intuu igu yimid wuxuu yiri adu Ilaahay ka soo diray lacag safar haan kaaga baahana واساس دوغو وداد lacag safar yaa kaaga baahan macdaalika lacagta aad siin doonto saan marka aad isiisaba adna Ilaahay ayadoo ka sii badan buu Ilaahay ku siin intaas ayaa leeso dirir in lagu dhaho saad u egtahay waxa dhan baa lisoo siiyay wadaadka xagar dheer baan dugsiyad badan ka dhigi jiro ka kiciyay haddana Soomaaliland u bixiraba ninka waan soo raacno waan soo waday lacagta iska yareed lacag 2,000 buu marka idahay iyo aniga weydiisay lacagta idahay baan siiyay cabaar ba hadaan sheekaysaneen yaa waxa yiri sababta qaxootiga quraanka loogu baran laayay ilmiga quraanka waa gali laayay waxa weey hal cilad uu yiri marka hal cilad weey wuxuu yiri macallinku ducadiisa wax lagu bartay dadaalka uu bixinayo waxa ka muhiimsan in duca laga helo hadana duca macallinka imaado weel caruur ma gaartay sabab markay u gaari laado waxa la gaari laado in lagu duceysto Soomaaliya horta ma jirto waa ducayn Soomaa god weyn dugsiga kugu meegaarsan iyo ku dhicay lacagti iyo waxa ku dhacay ducadii halkaas ku dhacaysa ma gudbaysa dadkii ma aadaysa adna maxaa leedahay ilaa dadka ilaa qortan quraanka bar ilaa quraanka u fur ilaa quraanka bi Allah Soomaa ma gudbaysa ducadii ma dhaafaysa intee baxdo ma gaaraysa ninkii marka hasidiisina soo ii sheegay bay noqotay wixii aniga aan siiyay markiiba ana aan dugsiga si galay ana farta laga saar qasay magtu way farfuraane sidii bay isku taasoo asoo sheegay wadaadka marka ninka marka quraan barashiis u baahan macallinka ixtiraamkiisa zaid ha ugu dadaalo xitaa nafsadaada adiga adeena macallinka hormarisa loo baahan yahay yaa loo baahan yahay maama maanin yaa iimaado waxay tiri laba ruux haduu qofku ka dadaalo oo macni maalka u bixinayo uu aad uga dadaalo Ilaahay wixii uu barakeeyay bay tiri waa labadeeba waa ninka ariga raaxay ninka dugsiga dhigay tiri labadaas nin bay tiri waqti ninka ariga raac bishan dhan soo riyo u daba socday hadaa tira ka waran ilaa taariikh 20 ma kula sii taariikh 10 ma kula sii waa rafaadiisa lag wadaadka bishan soo qeylina hadaa tira wali waa ii dambe adigu ana soo adeegan rabay hadaa tirayn waa on la mid aydan marka insha Allah taala meelo dhanbo waa saas waxaan macallimiinta sheegan ma ahana waxaan ka hadlaa wax waaqoon intaan meeshan joogan la kulmay weeyaan marka insha Allah waalidiintood inay horta markaysan loo siinayo hadii maanta iskuul la yiraahdo alla si shahada laga siinayo xabad waalid ama maqnaadeen haddana inay wada joogin baad moodaa Soomaali maanta kale maxay wahay maalin farxadeed bay wahay tan oo dhan intii soo xirtaan inay fadhiyaan baa la rabo marka insha Allah awlaadan macallinka iyo waalidiinta hadda qaybta joogto quraanka ku celiyana ku ayaa la dadajintaas wax badan dhaleysay dadajinta laga dhaafo barta quraanka ku duxo ha ku soo shaacali suufi Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariistay
وحالي قف من القرآن كدمي 5 سنة أسوأ حافظة دمي هذا تن معها تن هذا أنه أن سمعنا معها أنت دمي حافظية يا وحدي جرالي هذا 5 سنة أسوأنا ماشان كل ما يسنن إنه ماشان كبح لقمة يا بدنا هذا قصدي جرالي مركز حكى بحجري دد كأنفعه ماشي oo inta quraanka dhigay macalinka la shaqeeyay haduu maanta dhinac kaaga baxo xitaa caruurta guriga adiga dhasho waa fiican qofka haduu saas noqdo ogow haduu cunug saas noqdo oo intuu dugsiga joogo quraanka barto dan siibar oo khayrukum man ta'allama al-qur'aan wa 'allama inuu macalinka kaga dhabeeyaa la rabaa cunug inuu taa heraa la rabaa soo macalinkiisa la joogo inuu heraa la rabaa marka insha Allah intaasaan ku soo gabagabeynayaa si dadka iyaga hore iyo macallimiinta anaga wax lagu soo baray ahaan jireen aan noqono taa aan ku dadaalno dadka inta badan hadda baadiya la joogi jiray baadiya la joogi jiray maxaa baadiya marka waxa aqoon jirnay cunug 3 sano macallin ku joogo quraan xifdiye hada waa sax dhibaatada hadda na haysato cunugaas ma haysanin cunugan haduu soo tago oo guriga ku imaado inaad adiga ari i raac dhahdo ma ogi kitaabku jeclaan jiray bari qaar baab loox hata ari ku dhex wadan jiraan loox iyo wax ari ku dhex wadan jiray kunna markuu saan kaaga soo dhaaqo kuwa hadda jooga markay saan kaaga soo dhaaqaan gabadha weynaadii wiilkaadi weynaa guriga joogan telefoon ay haysan abo filan hebel ii shito kormarta quraan iyo qayr ba ka warhayaa filinka filan hebel la oran jiray ii dar maanta marka telefoonka saar la fiirsan haduu adi ka way Soomaa dariskaada Allah Taala taas u gali haduu labada way Soomaa garoonku waxa dir halkaas iyo fiican ka soo helay halkaas ka qaadan soo quraanku xifdin kara marka 3 sano cunugaas macalinka Allah saxal macallin 3 sano kula jooga xifdis oo guriga buu ka leesay aan wax u baraa ha in si fiican loo ogaado loo baahan yahay insha Allah ilaahay quraanka fadaishiis wax la soo koobi kara ma ahane hal shay baa kaaga filan khayrukum man ta'allama al-qur'aan wa 'allama niyad ay qalbiga u gasho kifaayay kugu tahay كفاية كوتاي إن شاء الله والله نوفذ ذي وضياشة نودعيني خير ودنا الله نوافجه انتاسن كسوق بجوينه إن شاء الله